way waxa doonay madaxweyne kulli codka sanduuqa ku ridi doonta ardaygu marka imtixaanka laga qaadayo kulli waxoogaa buu dareemi jiray adigu maxaad dareemaysaa kalsooni intee lag qabta aniga maanta waxay mudan kama waray madfuud heli maad waay waxa kama way inta noolo wali soo dooray dadka soo ixtiraamay aniga maanta waxa iga daran inay doorashadaas nabad qad iyo cadawga Soomaaliland ku jabo Soomaaliland mida codkay qabsatay hore u socota buuqna yareysay oo waxaad qabsata oo aqbasho wixii soo baxan oo galay way nicmo anu taas ay muuqata hayaade gabadha madaxweyne aad iyo aad maasantay oo ku faraxsanay maanta adoo dadka dastuuriga halkan ka dhiiranaya aan su'aal ku weydiiyo su'aalaha harta abiba naga wada boobay laakiin su'aasha ugu weyn ee Soomaaliland isweydiinaya waxa weeye madaxweynaha Soomaaliland oo maanta halkan ku sugan oo doorashadii mar labaad soo taagay horena loo soo tijaabiyay dadkuna ay ku tilmaamaan inuu yahay madaxweynaha adag ma ku qancaya natiijada komishanka haddii laga badiyo madaxweyne ma banaynaya uu ka jawaabay u kaadi ilaa maalintii ururada shirka jaraadu qabtay ay wareysanayeen ninkii la oran jiray muxuu ahaa ninkii Axmed Saciid war xafiiska kii horeeyay ugu lahaa tartamaysan la tartamaya way natiijada la aqbalay maanta bilaabo way ilaa maanta waan wada anu laba sabood baan u aqbalaya way umada intaasina way soo taageeraysaa intaan waan shaqeynay maanta ninku galgalnaa doorashada loo hadii dadku waad nagu daashay waan kugu daalanaga tag way filanay anu waqtiga bashaan jooga imika wax tarmooyay hadimadu waan soo dhameystay ninkan iyo warshiina me bala dhalinyarada lagu yaqaanay ninkan iyo su'aalka baalay 4 sano ka hor marka ay maanta anigu odayga dalka marka la iga biqi maayo muraani gaari laba kaba wada qasriso komishanka doorashooyinka qaranku maanta waxa weey garsoor oo iyaga seerigii gacanta ku haya natiijada doorashadu marka ay soo baxdo adiga ka madaxweyne ahaan iyo hogaankii sare ee dalka go'aanka komishanka maxaa inooga meel yaala oo aad halkan ka ballan qaadaysaa horta dadku waa kalaba sidaas laba qolo taala waata mar waxa taala madaxweynaha oo aan ka dadka oo dhammaan maanta eegayo ee laga doonayo dalkaas inuu nabad ku gudbo waata aniga hawsheeda koowaad waxa weeye qaranku waa يعني وحي قسوية وحي ويدي قف ولا موادنا سؤال هذا احترام قف ولا سؤال هذا وحي وآمن مستقبل كيسي مدة سودي مدة كانوا كسير سفرة بدلنا انت هاي ان لقيك بدل ما سودي أنا أقول ما أنت مدحوينها ها وحن ليه نتيجة وصار صار كوميشن ده بدي ديان الحل هلا أخبره أنا أقول واجب صدح سعود بواجب marka hore ilaa maalintii aan soo dejiraha ilaa maanta Soomaaliland inta sano dhaxay inta ay joogeen bisah way badantay madaxweyne ma labadeen inta aan saqaan bisah sodomey iyo ka badan sidoo kale way inta badan umadu dadka hor taagan aabayaashood awiyaashood hooyooyinkood kuwii dhageysanaya inta wali ixtiraamayo waxaan lagu tuumayay dalka daacadiisa iyo horumarkiisa inuu daacad ka shaqeeyo aniga taas ay saaran horta muran haygeeyay qof wala su'aalaad oo maqal waan ka natiijada uu soo saaro commission anigu waan ku gowracana kama hadli karo waayo xirka way bay saaran dadka mucaaradka caranay mucaaradkana waxa la yahay miir qab waad qaboobay qoys soo socod la yiraahdo natiijada isaguna miir qab ha ku aqbalo adigu loo sagada geem ma hada geem waa naftaada inaan hadashin darkaas ka jabinaya aad iyo aad baa mahadsantii wixii kale su'aalaad diyaar baa hadda ka xidhaysa madaxweyne qaar badan baa u cilqaab baray odayga